anigoo og in wixii maanta golaha shacabka ka dhacay ay ahaayeen sharci darro aan loo marin habraacii saxda ahaa ee xilka qaadis xukuumadeed anigoo og inaanay ku jirin ajandaha anigoo og inaan laga doodin anigoo og inaan loo codayn anigoo og inaanay waafaqsanayn dastuurka iyo shuruucda dalka waxaan ahay horjoogaha asxaabteyda waxaanu rajaynaynaa in aad ina gaarsiisaan halka aan mudan nahay waxaad inaga dhahanaysaan barteeda ee Bashiir Buurfuule laakiin waxa cad waxay tahay in maanta waxa kala qaybsan ay yihiin ciidankii xoogga dalka Abdurrahmaanow dad u sheegaysaa waxaas yaa ka akhrisanayo yaana ka dhageysanaya ii sheeg waxa la in rabo waa in la adeegsado shaqo fool xun la in dirsado ila cad ku warsane ma waalan tahay haddana ma waxaad leedahay shacabka ayaa dawladda loo adeegsanaya waan ognahay in hadda telefonkiisa Fahad iyo Farmaajo aflaad saac ay ku jiraan oo ay leeyihiin wax kasta anaga ku siinayna waxaan ku sheegayaa Fahad iyo Farmaajo waqtigoodii waa dhamaaday قريلة تلفنا قد لا قريلة جا قريلة جا قد ما ربنا بلا كودا علي حقو نرسو علي قرمين نرسو علي Farmaajo ani agteyda saaxiibadii raali iga hadaan waa ku hogaamiye kooxeed sababtoo ah madaxweynaadkiisii waa dhamaaday filla Soomaaliyana asoo hogaamiye kooxeed uu dhex fadhiyaa filla Soomaaliyana waa la ogyahay hogaamiye kooxeedii waa dhex fadhi jireen wax cusub maaha adiga maxaa tahay haddii ay Farmaajo hogaamiye kooxeed adiga maxaa tahay madaxdii hore ee hadda gadaasheeda taagan maxay yihiin Cabshakuurow maxaad doonaysaa mid waa mid local ah oo maxalli ah oo anaga noqonayso oo qof walba maanta meesha soo istaaga ama afartii maalmood maanta ugu dambeysay meesha soo istaaga oo ka dhawaajiyay waa xawaaye banaadir isteedin goboleedka banaadir waay hogaanka dawladda ee maanta jooga iyo xukuumaddiisa iyo madaxdiisa iyo mas'uuliyiinta joogto dalka marna inay marnaado oo marnaano inay jirta maaha laakiin wax kastoo joogaa maqaam iyo magac iyo wax loogu talagalay shaqay leeyihiin xukuumadda maanta joogto meeshaasay ku aadan tahay ha ka soo baxdo ha hagaajiso ha iska iloobo waxyaabaha aan dadkaani aqbalaadooda aanay ku imaanayn wax kasta oo dadkaani aanay aqbalina sharcina maaha qaanuunna maaha mana dhaqan geli karaan dadkuna xilligan la joogo waxay aqbalayaan waa la garanayaa waxay aqbalayaan waa la garanayaa mas'uuliyiinta maanta joogta ha ka hadlaan hana ku mashquulaan waxaas hantidiinu dhacaya dadkiina wax garadka iyo target gareynaya oo doonanaya dadkiin ha qabyaaladeynin annagana nooma fiicna adigana kuma fiicna tantaadoo kale ayaad fiirsanaysaa Soomaa Cabshakuur aniga inaan dib u habeyn ballaaran ku samaynay nidaamka maaliyadda dalkeena oo dunidu noo soo istaagtay soo celinay kalsoonidii uu caalamku nagu qabay kuna qabay hay'adaheena dhaqaale oo inoo saamaxday in laynaga cafiyo deyn lagu lahaa dalkeena muddo dheer ma taas kaliya maaha si fiican ku maanta waa maalinteydii aniga ayaa u turay dalka shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan leeyahay waxaan idinkugu adeegay awooddii ugu sareysay oo aan awoodo haddii ay wax iga khaldameen waxaan idin weydiinayaa inaad cafisaan ما إذا حتى كذا فرواجر هذا وحوي ويركع دراع شكر مؤجين ayaa la ii magacaabay xilka ra'iisul wasaarenimada qiyaastii 1247 maalmood ayaa ka soo wareegtay muddadaas 3 sano iyo barka ah
waxaan dalka Soomaaliyeed ugu adeegayay daacadnimo karti iyo hufnaan anigoo aaminsan inay ahayd waajib dalkayga iyo dadkayga iga saaran meeshaan jooga Nairobi teedaan u hadli karaa teedaan u hadli karaa waa la soo dhaafay wax walba waa soo aragnay 30 sano la soo dhaafay 20 sano ka horeysay 10 sano ka sii horeysay khibraddeena dawladnimo waa intaas sida gudoomiye Cabdi Xaashe uu sheegay waa yarta dawladnimada inta aan ka naqaan laakiin waa inaan hore u soconaa kuwa naga dambeeya hore u socdo markaan hoos u sheekaysanayno inaan dad caqli badan aan sheegnaa laakiin caqligu wuxuu ku imaanayaa caqliga jamaaciga caqliga wadajirka caqliga dawladda dhisay caqliga ummadda isu keenay kaasa caqli ah halka kaliya oo dalkan loo haayo waxa waaye 4 sano markay dhamaato doorasho in la galo hadda already sanada la dhaafay Soomaa waa dhaqan aan fiicnay kornay aqoon waxaan rabnaa inaan dul istaagno sanad maaha bil maaha maalin maaha saacad hadda wixii ka dambeeya in la wada ogyahay saacadda doorashada 4 sano soo socota ay dhacayso in la ogyahay kaas wuxuu keenaa kalsooni wuxuu keenaa deganaansho wuxuu keenayaa dadku si nadiif ah inay u tartamaan yaa sheegi kara maanta maalin doorasho dhacayso yaa yaqaan qof taqaana ma laha to be honest senataraa la soo saaray hadday iska joogaan ka warrama iyadoon waxba la dooranin oo sanadku noo dhammaaday wax saxa ma aha mas-uuliyiin aan nahay dad waaweyn aan nahay runtii ceebay nagu tahay arrintaas inaan ilaali weyno nidaamka yar ee noo qoran annagay ceeb nagu tahay dalkan sida la sheegayo 80% in ka badan waxaa bixiya adduunka waxayna ixtiraamaan adduunku shuruucda u taala in lagu kaalmeeyo oo adiga sharcigaaga ah ilaali weyso waxay keenay gacmaha in laga laabto maxaa ka dhalanaya marka dalkan annaga kaliya ma joogno wax badanaa jooga wax badan oo jooga waxaan uga adkaa karnaa dawladnimada inaan xoojino haddaa is leedahay Soomaalidu waa muhiim oo lagama maarmo waa laga maarmaa Soomaalida Afghanistan waa laga maarmo annaga u jeednaa maalin cad laga soo tagay waxaa la rabaa inaan wax garad waa nahay laakiin marxaladda la joogo iyo muhiimadeeda inaan garanno waxaan ka codsanaynaa ra'iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa madaxweynayaasha dowlad goboleedyada arrinta doorashooyinka inay dedejiyaan maalin aan wax la qaba karin inaan isfiirino lama rabo dalkan wuxuu ku socda waa nidaamkiisana waxaa asaas u ah doorashooyinka 4 sano oo mar la qabanayo waa la soo dhaafay gadaal uma fiirinayna hadda waxaan leenahay hadda hala dedejiyo ha loo qabto si wanaagsan oo cadaalad ah